قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii fatxu majiidka. waxaan ku dhex jirnay in ilaahay subxaana wa tacaala loo hogaansanaado, tawxiidka qaalis looga dhigo, shirkiga iyo waxyaabaha ka mid ahna aad iyo aad looga ilaaliyo. baabu qowli illaahi tacaala, ilaahay qowlkiisii sarreeyey ayuu baab u yahay. baabu qowli illaahi, ilaahay qowlkiisii tacaalaa ee sarreeyey baabkiisii waaye uu yidhi ayushrikuuna, ma waxay la wadaajinayaan ilaahay cibaadada maa la yakhluqu shay-an, waxaan waxba abuuri karin, wahum yukhlaquuna, ayagaaba la abuurayba, ayagaa la qalqay oo wix ayaga wax abuuri karin oo ayaga laftigooda la qalqay miyay ilaahay u shariik yeelayaan? walaa yastatiicuuna, aanana awood lahayn lahum ayaga nasran gargaar, walaa yastatiicuuna, aanana u awoodi karin lahum ayaga nasr, wax nasri iyo gargaar oo ay siin karaanna aysan jirin. walaa anfusahum, nafafyaalkoodana yansuruuna, aanan u gargaari karin. waxaad ku gargaari karin iska daa cid kale inay gargaaraan, nafci iyo waxtar ay siiyaane, xataa naftooday nasri siiyaan. kuwaa miyay ilaahay la caabudayaan subxaana wa tacaala? kuwaa miyay ilaahay cibaadada ula wadaajinayaan subxaana wa tacaala? idan wax daciif ohoon tabar lahayn, waxna aan awoodi karin inaad caabuddo, waa wax foolxumo kugu ah. iyo wa qowluhu, ilaahay qowlkiisa uu yidhi waaladiina kuwa tadacuuna aad caabudaysaan min duunihi alla sukadiisa maa yamlikuuna, ma idin awoodi karaan min qimiirin, qitmiir wax la mid ah. qitmiir ay idin awoodi karaan marka wax yar oo ay idin anfici karaan ma jiro, wax ay idin hanan karaan ma laha. sidaa darteed qitmiirku waxaa loola jeedaa timirta jeex yar ama liilin yar oo lafa ah oo markaa ku dhex taaloo gudaha timirta lafta uga taala. min qitmiirin laa yamlikuuna min qitmiirin, qitmiirna markaa idinma hanan karaan oo waxay idin awoodi karaan markaa ma jiro. waxaa yar haddaysan awoodi karin, wax weynna iska badaaba, wax weynna markaa iska daa. in tadacuuhum, haddaad caabudaan ood u dhawaaqdaan ood u qayla dhaansataan, laa yasmacuu ducaa'akum, diina maqli maayaan. ileen waa dhagxaan iyo qoryo. waxaad caabudaysaan waa waxaan mataqaanaa caqli lahayn, waa waxaan wax arkayn. xataa haddii qubuuraha loo baxo oo dul istaagtaan oo caawoo dhan aad baridaan ood ilmo iyo caafimaad weydiisataan, in tadacuuhum laa yasmacuu ducaa'akum, ducadiinna maqli maayaan. walow samicuu, haddii la qadaro xataa inay idin maqlaanna, ma stajaabuu lakum, idinma ajiibi karaan. xataa hadday dhacda inay idin maqlaan, idinma ajiibayaan. wa yowma alqiyaamati, maalinta qiyaamana, yakfuruuna, waxay ku kufrinayaan oo ay ku kufrinayaanay inkirayaan oo ay beeninayaan waaye bishirkikum, shirkigiina, shirkigii iyo wadaaggii aad ilaahay cibaadadiisa wax la wadaajin jirteen way idinku inkirayaan. walaa yunabbi'uka, mana kuu warrami maaya mithlu khabiirin, khabiir oo kale. ilaahay khabiirkaasuu kugu warramo xaqiiqda uu kuugu sheego, qof saasoo kale ah kuugu warramaya
oo xaqiiq kaagala hadlaaya oo xaqiiq kuu sheegaya ma jira buu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala. xataa hadday dhacdo inay idin maqlaan ma stajaabuu lakum, ma idin ajiibin. wa yowma alqiyaamati taqruun shikum walaa yunabbi'u, sidii uu kuugu warramo, xaqiiqda uu kuugu sheego, qof saasoo kale kuugu warrami karaa ma jira buu ilaah leeyahay subxaana wa tacaala. wa fi saxiixi, saxiixa waxaa ku sugnaa can anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi shuja annabiyu, nebigaa la dakray sala allahu calayhi wasalam yowma uxudin, maalintii dagaalkii uxud ayaa nebiga dhaawac daqar ah gaaray. faqaala markaasuu yidhi kayfa yuflixu, say u liibaanayaan qowmun qoom oo shajuu daqray nebiyahum, nebigooda. fanasalat, waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay-un, amarka xaggiisa shay kaagama sugnaanin rasuulkii ilaahayo. allah haddii uu doono wuu cadaabanayaa, haddii uu doonana wuu u raxmanayaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay seebuu ugu gargaarayaa oo ay liibaanayaan qoom nebigoodii daqray, ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam. weli waxaa la tilmaamaa maalintii nebiga wejigiisaa la daqray, dhiiggii wuxuu gudagalay inuu wejigiisa ku qubanayo, isagana uu dhiigga ka masaxayo, asagoo dhahaya kayfa yuflix, say u liibaanayaan qoom nebigooda wejigiisii cilaamay, dhiigna ku cilaamay, asagana uu ugu wacahaya rabbigood. kadib bay aayaddu soo degtay laysa laka min alamri shay-un, amarka shay kaaga sugnaaday ma jira xaggiisa. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu doona waa ciqaabaya, waa uu ka towba aqbalaya. asagoo xaaladaa sameeyey ayaa haddana ilaahay hanuun la dooni karaa, hadduu doono waa u ciqaabayaa arrintaa. saa darteed baa aayadda xaaladaa ku soo degtayoo rasuulku wuxuu yidhi iska soco adiga, ayaa lagu yidhi. xaqa iyo diinbaahinta ha joojinin, haddii dhiigaaga la qubo iyo haddii dhib kale lagu gaarsiiyo ajraad agtiisa ku leedahay waa kow. ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala asagaa garanaya sida uu ugu talagalaye rasuulkii allow ku soco. wa fiihi, waxaa ku sugnaa can ibni cumara annahu ibnu cumar, wa fii saxiixi albukhaariy cumar annahu samica inuu maqlay, ibnu cumar dheh, annahu samica inuu maqlay rasuula allahi, rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam, yaquul asagoo dhahaya idaa rafaca ra'sahu, madaxiisa haddii uu kor uga soo qaado min alrukuuci, rukda, fi rakcati alakhiirati min fajri, salaada fajarka ah, wuxuu dhihi jiray nebiga allaahuma alcan, ilaahayow nacalada korka ka saar oo naxariista ka fogay fulaanan iyo wa fulaanan, hebel iyo hebel iyo hebel. bacdamaa yaquulu, markuu yidhi kadib samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamdu, faanzala allahu, ilaahay baa soo dejiyey laysa laka min alamri shay-un, amarka xaggiisa shay kaagama sugnaan rasuulkii allo. hadduu doono ilaahay waa cadaaba, hadduu doono waa u naxariisanaya subxaana wa tacaala. marka xaqa gaarsii, diinta gaarsii, wax alla wixii khayr iyo wanaaga u sheeg, waxay shar iyo wanaag ku gaarayaan u tilmaam, xataa haddii dhib lagu gaarsiiyey. dhiigaagii la qubay, rasuulka allow wadiifada dacwada ha joojinin, ha joojinin ayaa markaa lagu yidhi. wa fii riwaayatin, warin kale waxay ahayd yadacuu, waa uu habaaray nebiga calaa safwaan ibni umayata wa suhayl ibna camr walxaab bni hishaam, faanzalad, markaasaa waxaa soo degtay laysa laka min alamri shay-un, amarka xaggiisa shay kaaga sugnaaday ma jiro, iyo lacnada dusha ka saar hebel iyo hebel. waa safwaan ibnu umay, suhayl ibnu camr, xaaris ibni markaa la mid ah, rasuulku wuu habaaray. yadcuu calaa safwaan ibni umayata wa suhayl ibni camr waalxaaris ibni hishaam, falaysa laka min alamri shay-un, amarka xaggiisa wax kaagama sugnaanin, ayaa markaa rasuulka lagu soo dejiyey.
taasaa markaa ku soo degtay dushiisii xaqa iyo dacwada iyo diinka wado hana markaa joojinin. markaa rasuulka lagu soo dejiyey wafiihi waxaa ku sugnaa oo kale waa saxiix albukhaari can abi hurayrata radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaama rasuuluullahi rasuulkii allaa istaagay calayhi wasalam xiina anzala allahu markuu ilaahay soo dejiyey ilaahay ku soo dejiyey calayhi rasuulka korkiisa xiina unzila allahu calayhi wakhtigii ilaahay korkiisa uu ku soo dejiyey wa andir udig cashiirataka cashiiradaadii tolkaagii qaraabadaada alaqrabiina kuwa ugu dhow aayaddaa markiisay qaala wuxuu dhahay nebiga yaa macshara quraysh macsharteediiye qurayshtii kulantayay awmatan naxwahaa ama hadal u dhigma hadal saasoo kale u dhigma ayuu yidhi ishtaruu iibsada anfusakum nafafyaalkiina laa ugnii deeqi maayo cankum xaggiina min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an wax aan idinkaga tari karaa ma jireen ilaahay xaggiisa waxba ma idinkaga qaban karo naftiina alla ka iibsada diinta alla ku dhaqma khayrka iyo wanaagga ku socda ishtaruu anfusakum nafafyaalkiina gata oo ka iibsada laa ugnii ma tari kari mana deeqi kari cankum xaggiina min allaahi alla xaggiisa shay-an waxbee yaa cabbaasow yaa cabbaas ibni cabdilmutalib cabbaaskii ina cabdilmutalib ahaayow waa adeerkiisa laa ugnii ma koodi kari ma kaaga deeqi kari canka xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba adeer ilaahay xaggiisa wax aan kaaga qaban karo baa safiyadii cammata rasuulillaahi rasuulka alle eedadiis ahayday sala allahu calayhi wasalam laa ugnii adiguna deeqi kari maayo cankii xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba eedda ani waxba ma kuu qaban karo wiilaan eedda u ahaa baa nebi ahaa saasaan ku moodaa aakhiro ilaahay ka cabsan maayo jannada dooqaygay noqonaysaa bacdamaa wiilkayga nebi ahaa ma jirta qiyaamo eedda wax ma kuu qaban karo eedda wax ma kuu anfici karo eedda wax ma kuu tari kari ee ogow yaa faadimatu binta muxammadin faadimo oo ina muxammed ahayday saliinii i weydiiso min maalii xoolahayga maa shi'ti wixii aad doonta maan dhahay laa ugnii mase deeqi kari cankaaga faadimay min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba faaduma ilaahay agtiisa wax ma kaaga tari kari aabbahaabaan ahay aan ogahay aabbahaa waa nebi muxamed oo ilaahay soo dirsaday subxaana wa tacaala iyadoo intaasoo dhan ay jirta faadumo ilaahay agtiisa wax aan kaaga tari karaa ma jiro waxna ma kuu qaban karo rabbigaa ka xisho buu ula jeedaa diinta alla ku dhaqan taasaa wax qabanaysa amarka ilaahay ha dhinac marin taasaa wax kuu taraysa rabbigaa ha caasin taasaa wax kuu taraysa faadimay ogow buu yidhi yaa faadimatu faadimoy oo binta muxammadin badhiisa ahayd ninkii nebiga uu ugu jeclaa ilaahay uu ugu jeclaa khalqigiisa ee uu doortay waa nebi moxamed jirkiisay ka soo go'day waa cad ka mid ah haddana wuxuu tilmaamayaa qiyaamaha waxay ayadu qabsata maahine wax kale inuusan anficin waxay ayadu diin ahaan ugu dhaqanta maahee wax kale inuusan anficin markuusaa leeyahay wuxuu tilmaamayaa oo meesha ka nuux asagoo u jeeda in hortiisa lagu ciqaaday xaaladaasuu u tilmaamaya muxuu yidhi nebiga yaa faadimatu faadimay binta muxammadin muxammedii uu dhalay saliinii i weydiiso waxaad i warsataa min maalii maa shi't xoolahayga waxaad ka doonto waxaan kari karaan ku siin waxaan awoodi karaan kuu qaban janno oo la gala awood looma laha ilaa inuu ilaahay qofka geliyo maahane gabadhayday ogow laa ugnii cankii inaanan deeqi karin tari karin xaggaaga min allaahi ilaahay xaggiisa shay-an waxba wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala
أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي